السلام عليكم أود وما هي وح أخرسك مر والبا أنا إسلاح ضو وح أخري وح أندري ما عاجز أما مرك قاركود وح أندري ما إني هردي حيسو إيضا مرك قاركود أن كنت لك شناه إن أنا وح أخرستو أن سود ديار قلوبي أيا وح لقى يابا إن أن تلفن كي جل صبحه أنا جوا إسلا لبض دقيقة شن دقيقة عاد استعماشي لكن وح أن كبر رجع إنه وقت آذو فربضان يقلمي سؤالها إيه سؤالها الله متكع وسؤالها ugu badan inta ugu badan ay ii soo diraan ardaydu iyaga oo ka cabanaya caajiska xagga wax akhriska in mar walba oo ay wax akhriyaan ay naftoodu ka caajisan tahay wax akhriski ama aanay awood u haynin wax akhriska su'aal baan hadaba idin weydiinayaa intaanan mowduuca bilaabin haddii maanta uu madaxu ku xanuuno maxaad samayn lahayd dadka qaarkood waxaa laga yaabaa in ay laba xabo kiniiniya cunaan oo xanuun baabiya laakiin kiniin xanuun baabiyahaas waxa uu ku haynayo kaliya inta uu jirkaaga ku jiro marka uu kiniinka jirkaaga ka baxo xanuunkii halkiiba ku soo laabanaya dadka qaarkoodna baaritaan bay sameeyaan way soo baaraan kadib waxay ogaadaan sababta keentay inuu xanuunkani asiibo kadibna sababta ayay daweeyaan hadhowna kuma soo noqdo xanuunkii maanta waxa aan rabaa inaan halkan kugula wadaago sababaha keena caajiska wax akhriska iyo sida loo daaweyn karo mowduucan markii la baaray waxaa la ogaaday in ay jiraan 6 arrimood oo ardayga ku sababi kara inuu ka caajiso wax akhriska ama uu tabar u waayo inuu cashiradiisa ama duruustiisa uu akhriyo inta haddaba aanan sababaha ku soo bandhigin waxa aan rabaa inaad ila shaqayso muuqaalkan inta aad daawanayso waxa aan kaa codsan lahaa si aynu arrinkaasi aad u ogaato sababaha keena iyo cilaajka ama iyo dawada lagu daweeyo inaad soo qaadato qalin iyo buug sabab walba oo aan sheego waxa aan ka rabaa in aad qorto wixii adigu aad ku daweyn lahayd kadibna muuqaalku intaanu dhamaanin ka hor waxa aan ku sheegi doonaa waxyaabaha cilaajka ah ama qaabka loo daweeyo caajiska wax akhriska aynu bilowno sababta koobaad waxa loo yaqaanaa inaad haysato doorasho fara badan doorasho waxa laga wadaa marka aad isleedahay wax akhri ayaa wuxuu caqligaagu ka fikirayaa waxyaabo kala duwan ama wuxuu caqligaagu haystaa choices kala duwan ama khiyaaraad kala duwan kahor inta aanad bilaabin wax akhriska sida مثلا inaad isticmaasho mobilkaaga social media gasho waxa laga yaabaa adigoo wax akhris leh inaad soo xasuusato filim aad u baahnayd oo aad ilowday waxa laga yaabaa adigoo isla wax akhriso inay maskaxdaada ku soo dhacdo meel aad tageysay oo aad ilowsanayd kadibna meeshii aad tagto marka sababta ugu horeysa ee keentay caajiska wax akhriska waa inuu qofku haysto choices ama options kala duwan oo ka mashquulinaya wax akhriska inta badan optionska ama doorashooyinka kala duwani way ka macaan yihiin wax akhriskii wayna ka raaxo badan yihiin sida uu caqligaagu ama naftaadu ay u fikirayso taasi waxa weeyaan sababta koobaad waxa aan rabaa halka marka aad joogto muuqaalka inaad qabato oo aad buuggaaga ku qorto sababtaas oo kale hadii ay ku haysato maxaa adigu maskax ahaantaada maxaad ku xalin lahayd sababta labaad ee keenta inuu qofku ka caajiso wax akhriska waa inaanu fahansanin ujeedka uu wax u akhrinayo waxa laga yaabaa arday fara badan oo waxa jirta khalad aad u weyn ku dhacda iskana ilaali adigu inaad ku dhacdo khaladkaasi waxa weeyaan in uu qofku u fahmo wax akhrisku inuu yahay ujeedada ugu weyn ee uu rabo inuu gaaro arrinkaasi waxa weeyaan waa khalad aad u weyn oo arday badan ku dhacaan ujeedka ugu weyn ee wax u akhrisanayso waa inaad isweydiiso muxuu yahay waxa laga yaabaa inaad qofku inuu raado ujeedkaygu ama hadafkaygu waxa weeyaan inaan luqadda Englishka barto ama waxa laga yaabaa inuu raado مثلا waa inaan xisaabta barto ama waxa laga yaabaa inuu raado waa inaan maanta inta akhriyo hadaf ama ujeedu ka dhiganaya laakiin sida saxdii waxay ahayd in aad ka fikirto hadii aad Englishka barato maxaa ka dambeeya oo marka aad baratay kadib aad heli doontaa hadii maanta aad wax akhrido oo si fiican wax u akhrisato maxaa ka dambeeya oo aad heli doontaa ama nafciya oo aad ka faa'iidi doontaa marka wax akhriska ama wax barashada waxa loo yaqaanaa waa toolski waa dariiqii aad mari lahayd ee hadafkaaga ku gaarsiin lahaa laakiin hadafku waa maxay waa waxa ka dambeeya ama waa faa'iidada ka dambaysa ee heli doonto marka aad wax akhrido marka arday fara badan waxa ka lunsan ujeedka uu wax u akhrinayo sababta saddexaad ee ardayda ku sababta in la ogaaday in ay ku sababta ardayda caajiska ama tabardarida xagga wax akhriska waxa weeyaan 3 arrimood oo saddexduba ay ka bilaabmaan xarafka ma'da koobaad waxa weeyaan maadadan ma jecel ma'da labaadna waxa weeyaan maxaa ka faa'iidaa horta maadadan inuu ardaygu isweydiiyo ma'da saddexaadna waxa weeyaan ma fahmi kara maadadan oo ay maskaxdiisa ka dhaadhacsan tahay maadadani way kugu adag tahay saddexdaa ma oo la isku geeyay waxa loo yaqaan waa sababta saddexaad
ee arday ku sababi karta inuu ka caajiso waxbarashada. sababta afraad ee keeni karta in aad ku caajisto wax akhriska waxa weeyaan waa deegaanka aad wax ku akhriyayso. dadka qaarkood waxaa laga yaabaa inaanu ka fikirin meesha uu wax ku akhriyay waa meel halkeeya. waxaa laga yaabaa inaad wax ku akhriyayso qolkii aad seexanaysay kadibna ay hurda kugu qabato wax akhriska. dadka qaarkood waxay la tagaan muxuu ahaay buugaagtooda ay wax ku akhriyaan hoteelada. marka waxaa laga yaabaa inuu kusoo maro qof aad garanaysay ama aad aragto waxyaabaha qaarkood oo meesha ka socda kadibna caqligaagii ama maskaxdaadii waxaad iloobaysaa wax akhriskii. sidaa awgeed baa loo yidhi waqtiga ugu fiican ee waxa la akhriyay waa marka laga soo baxo salaada subax. sababtu ma aha wax kale, waxa weeyaan waa jawiga wax lagu akhriyayo oo degan. taasina markaa waxay ahayd sababta afraad ee ardayga ku sababta inuu ka caajiso wax akhriska. number 5 sababta shanaad ee ardayga ku sababta caajiska wax akhriska waxa loo yaqaanaa waxay culimadu u bixiyeen overstimulation. overstimulation waxa weeyaan waa xamaasada zaa'idka ah. waxa laga yaabaa imika inaad isweydiinayso caajis baynu ka warramaynaa, haddana waxaan leenahay sababta keentay waa xamaaska ama waa xamaasada zaa'idka ee loo hayo wax akhriska. waxaan tusaale fudud imikan kaaga soo qaadan karaa bisha Ramadaan oo kale. maalinka ugu horeysa bisha Ramadaan dhammaan masaajidada dhan way buuxaan, dadka oo dhan diyaar bay u yihiin khayrka. shanta waqtiba waa la soo buuxiyaa, taraawiixda meel la kala istaaga lama helo. laakiin step by step bay dadku qaarba maalin uga go'aan taraawiixda. waxa laga yaabaa bisha maalinta ugu dambaysa bisha Ramadaan in taraawiixda kaliya uu soo haro imaamkii iyo 4 qof oo isaga la tukanaysa. xaaladda marka culimadu waxay u bixiyeen overstimulation ama waa xamaaska ama xamaasada zaa'idka ee shayga loo qabo. waxa la ogaaday marka dambe inay ku dambayso caajisnimo. marka halkan imika wax akhris baynu soconay, waxa laga yaabaa ardaygu inuu 2 maalmood intuu naftiisa soo canaanto ama dhiirigelin soo dhageysto uu is iraahdo midna hadduu English kala baranayay maanta maalin walba inaad xafido 50 kelmadood oo English ama maalin kasta waa inaad inta shay aad akhrido ama inta soo shay kala duwan aad maalin walba xafido. xamaasada zaa'idka ee wax akhriska la soo galay marka dambe waxay ku dambaysaa un caajis iyo wahsi weyn oo qofka ardayga ku habsada. sababka ugu dambeeya ee sababa caajiska wax akhriska waa inaanu ardaygu aanu fahansanayn ama aanu garanayn qaabka loo samaysto jadwal wax akhris. marka cilmi la'aanta ardayda ka haysata qaabka waqtiga loo nidaamiyo ee loo samaysto jadwalka wax akhriska ayaa in fara badan oo kamid ah hadhow ku sababta inay ka caajisaan wax akhriska. halka imika waxaynu haynaa 6 sababood oo ardayga ku keeni kara in uu ka caajiso wax akhriska. marka waa inaynu keenno 6 arrimood oo lagu xalinayo 6daas sababood. talada ugu horeysa ku siinaya waxa weeyaan markaad wax akhrisanayso dhammaan waxaad iska fogeysaa wax kasta oo wax akhriska ka mashquulin kara. macnaha waxaad u diidaan naftaadu in ay hesho choice labaad ama qorshe labaad ama fikir labaad oo maskaxdaada ku soo dhici kara. anigu imika haddii hawl muhiim ah aan qabanayo shaqada ugu horeysa ee qabtaa waxa weeyaan taleefankayga inaan xidho. waa number 1. buugaagtii ama waxyaabaha qaarkood ee mashquulin lahaa ama buugta fiican aan jecelahay inaan akhristo dhan dhammaantood inaan iska fogeeyo. inaad tagto meel aanay cidina joogin oo aad wax ku akhrido. marka naftaadii kaliya tan waxa u soo haraysa markaad wixii kale oo dhan iska fogeyso in ay wax akhrisato. taasi waa talada koobaad. talada labaad ee ku siinayo waxa weeyaan inaad mar walba maskaxdaada aad ka fikirto hadafkaaga fog. oo ah hadafkaaga fogna waxa weeyaan wax akhriskan kadib maxaa ka dambeeya. inaad ka fikirto adigoo guushii gaaray, inaad ka fikirto midhaha hadhow aad goosan doonto kadib marka aad wax akhrido. kadib marka waxa dhici doonta in caqligaaga uu xamaasadoodo oo aad hesho xamaasad fara badan oo aad wax ku akhrisato. talada saddexaad ardayda ka cabanaysa inay maadooyinka qaarkood adag yihiin ama aanay jeclayn ama waxyaabaha nooca la mid ah waxaanu aan la yaabaa waxa weeyaan maado uu fahansan yahay arday adiga kula mid ah oo laga yaabo iskuul inaad ka soo baxdeen weligaa inaad intaa aad isgarab fadhideen. waxa laga yaabaa ardaygaasi inuu maadada aad ka cabanayso uu si fiican u fahansan yahay. sidee bay adiga macquul u noqotay in aad tiraahdo ma fahmi karayo ama way adag tahay. waxaad daba maskaxdaada ka saartaa adduunyada in aanay jirin wax adag. waxa adag waxa weeyaan waa wali waxa laga yaabo inaanu qof sameeynin. laakiin mar uun shayga haddii adduunka la sameeyay cudurdaar dambe oo inoo haray ma jirto. waa adiguna waxay ka dhigan tahay waad samayn kartaa. marka naftaada ka ilaali cudurdaarada faraha badan ee ay oo caqligaagu kuu sheegayo ee ah waxaan ma garanaysid iyo ma karaysid iyo ma baran karaysid. talada afraad ee kugula talinayo waxa weeyaan inaad wax akhriskaaga la tagto meel degan. mar walba inaad ku dadaasho meel aanad buuq maqlayn, meel aanad qayle maqlayn.
waqtiga aad wax akhriyeysayna inuu kuu noqdo waqti degan waxa maskaxdaada ku haysaa hal talaan ku siinaya talada maanta aan ku siinayo waxa weeye haddii aad ku dhaqanto aad si fiican wax u akhrin doonto cadowgaaga koobaad ee wax akhrisku waa taleefankaaga mar walba oo aad rabto inaad wax akhrido taleefankaagu ha kaa fogaado ama meel kale kaga imo kadib markaa waxaad awood u heli doontaa inaad si fiican aad wax u akhrisato talada shanaad ee ku soo jeedinaya waxa weeyaan wax akhriska in aad kala qaybsato macnaha maalinkii inaad naftaada aanad dhibin maalinkii aad akhrido wax macquula oo maangal ah inaad maalinkii aad akhrisato ardayda waxa la yiri waxa la ogaaday hal mar ishraahdo wax wada akhri ama cilmiga hal mar wada baro hal mar bi cilmigana ka wada baxaan mar walba aad wax akhrisato waa inaad fasax yar aad hesho oo aad naftaada aad u raaxayso hadhibin markaa naftaada mar walba markaa naftaadu aqligaagu wuxuu u fahmi doonaa halkii marka hore uu ka dhibsanayay wax akhriska in markuu wax akhriyo aad fasax siiso kadibna hadhow toole isaga ayaa kugu caawinaya inaad wax akhrisato talada ugu dambeysana waxa weeyaan haddii aanad garanayn qaabka loo samaysto jadwal wax akhris ama waqtiga loo nidaamiyo waa xirfad muhiima oo aanu ardayna ka maarmin waa inaad soo barato iminka youtube-keena ramadaantii baanu ka samaynay muuqaalo qaabka waqtiga loo nidaamiyo ee waqtiga loo hawaysto insha allahu tacaala dhawaana waxaan rajaynayaa muuqaal kooban oo ka hadlaya qaabka muxuu ahaayey waqtiga loo nidaamiyo gaar ahaan waxbarashada in aan dhawaan aan soo samayno marka hadduu waqtigaagu kaalinaysan yoonad garanayn waqtigana waxa fiican xirfadda in aad soo barato halkaas ayay inoogu joogaan maanta sababihii keenayay caajiska wax akhriska iyo xalkii aynu u haynay waxa laga yaabaa iminka waxyaabaha aan sheegay qaar badan oo kamid ah in adigana buuggaaga ay kugu qoran yihiin oo aad maskaxdaada ka keentay sababta haddaba maanta aan ku lahaa buug iyo qalin soo qaado oo isku day sababahan inaad xalkooda keento maxay ahayd haddii aad u fiirsatay iminka waxa laga yaabaa talooyinkii iminka aan sheegaynay ee aqalin iyo buug inaad soo qaadato inaad xalkii keento haddaad sidoodii u raacday waxa aan ku kalsoonahay in muuqaalkan iminka aad daawanayso uu noqonayo muuqaalkii ugu badnaa ee maskaxdaada soo jeeday intii aad youtube ka daawanaysay sababtana waxaa keenay wax kale maahayn waxaad isticmaalaysay gacantaada iyo qoraalka marka waa talada ugu dambaysa aan ku siinayo talada waxaan jeclaystay si practical inaad u qaadato talada ugu dambaysa aan ku siinayo waxa weeyaan marka aad wax akhriyayso isku day in aad wax nood garaysato in aad wax soo koobto si aanay maskaxdaada u bixin haddii laakiin maskaxdaadu baxdo waa tallaabada ugu horeysa ee kugu sababi karta in aad caajisto muuqaalkeenu maanta halkaas ayuu inoogu joogaa intaa kasii dheerayn mayno maadaameynu caajiska ka hadlaynay si adiguna aanad uga caajisin muuqaalkan insha allahu tacaala waxa aan rajaynayaa haddii muuqaalka aad ka faa'iidaysatay waa in aad like aad ku taageerto si uu youtube-ku usii gaadhsiiyo ardayda kale iyaguna muuqaalkan oo kale ama dhibtan oo kale ay haysato intaynu muuqaalkan mid lamida ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu